السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داود لهانتين بميل البوء نجد داونيسان هل قد حلقان 6 سنة نجد داونيسان وتلفزيون كعالم يونيفرسال ستوديو وكل هاي بريقة مقالة لندن كسر دواد ورك عالم كهني قلت جميلة قرنا يودياره قد بدأ مرة كذا كوجا هنا وحكم ذا قيبة كم ذا بالشدة عالم كهيا عمبارية قرحي شلي كدعي عاصمة دالك سوماليا dadka ku dhintay qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo wali laga daad gureynayo xafiiska oo qaraxu ka dhacay banaanbax lagu taageerayay dalka Turkiga gurmadka oo had iyo jeer la garab taagan yahay dalka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho maamulka iyo shacabka gobolka Shabeellada Dhexe oo cambaarayay qaraxii shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho maamulka Puntland oo waalidiinta ku dhaqan deegaanadooda kaga digay inay carruurtooda tahriibaan xilli dhalinyaro badan oo Soomaaliya ay ku dhibaataysan yihiin daafaha caalamka magaalada dhagax buur ay gabaabsi marayaan iyana mashaariicda dhanka horumarintaana ay ka socday qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin hay'adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR oo sheegtay inay sii kordhiso tirada dadka qaxootiga ku noqonaya caalamka ee wararkeena ku maqli doontaan warkii oo faahfaahsan waxay soo taraysaa cambaareynta ka imaanaysa daafaha caalamka ee ku wajahan qaraxii shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaaray weerarka lagu qaaday xarunta hay'adda qaramada midoobay ee ku leedahay magaalada Muqdisho asigoo sheegay inaysan marnaba joogsan doonin howlaha ay ka wadaan Soomaaliya waxa sidoo kale cambaaray qaraxaasi midowga Yurub midowga Afrika iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay inaysan marnaba aysan istaagi doonin howlaha ammaanka ay ku sugayaan ee ka wadaan magaalada Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya dhanka kalena dawladda Mareykanka ayaa si aad u cambaareysay weeraradii ismadaminta ahay iyo tooska ahay ee shalay ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho waxayna markaasi sheegeen in Mareykanku ay ku tilmaameen weerarkaasi mid bahalnimo ah warsaxaafada ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa tibaaxayay in weerarka lagu qaaday ama lagu bartilmaamay sida shacab iyo hay'ado caawinaya dawladda Soomaaliya lana shaqeynaya dawladda Soomaaliya si ay wax uga qabtaan arrimaha caafimaadka biyaha fayadhowrka iyo waliba dhaqaalaha waxayna ahaayeen bay dhaheen dad la shaqeynaya sidii loo hagaajin lahaa mustaqbalka Soomaaliya sidoo kalena Mareykanku waxa uu sheegay in markaas ay soo dhaweynayaan go'aankii ama hadalkii ay ku jawaabeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM kaas oo ahaa inaysan marnaba howlaheeda aysan caqaladin doonin qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale daawadayaal qaraxaasi ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 15 qof waxaana cambaareeyay sidoo kale dalka Britain ayaa kamid ah dalalka cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana sheegeen inay baarayaan in dad ay uga jiraan dadka ku dhintay magaalada Muqdisho waxaana wali la daadgureynaya ama laga daadgureynaya goobtii uu qaraxu ka dhacay midadka dadkii ku dhintay shalay ay ku jiraan dadkii ismaadaamiyay wali ayaga Hani Xaaji Maxamed ayaa gaartay goobtaasi isla markaana warkan inooga soo dirtay iyadoo shalay qaraxyo ismidaamin ay ka dhaceen xarunta hay'adda UNB ee magaalada Muqdisho kuwa u geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa wali waxa laga daadgureenayaa gudaha xaruntaasi dadkii ku geeriyooday falkaasi waxaana maanta booqday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir si ay u ogaadaan qasaarihii ka dhashay falkaasi iyagoona ku tilmaamay qaraxyadii shalay ka dhacay xarunta hay'adda UNB mid naxariis darro ah bismillaahir rahmaanir rahiim sida u jeedaan waxaan aruurinaynaa dadkii ku dhintay ama qoladii shabaabka ay isqarxinaysay shalay soo weerartay xaruntii UNDP da ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada gaashaan ay ku guuleysteen inay toogtaan ay ka hor intay aysan sameeyeen waxa ay damacsanaayeen falkoodina waa fashilmo u jeedaan waxaa dawladda hoose maanta ay aruurinaysaa nadiifinaysaa haraagii qaraxyadii wixii meelaha baawurkii jajabay ee isku qarxiyeen iyo meydadka xoolo dariiqa marayay iyo wixii alla wixii meesha ku dhintay annaga waxa naga go'an xukuumadana ka go'an in ninka dhalinyaro la soo qalday inuu noo yimaado telefoon noo soo dirsado waxa uu rabana uu sameynaa hadduu dibadda rabata waa loo diraa jaamacada hadduu rabata waa loo diraa dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa qaniye ka fujisa ninka shabaab ee la arko asoo bam wata ama bostoolada wato waa in meesha lagu dilaa yaa la daynin umadaas waraaba iyo ay raabiya lagu sidayn mas'uuliyadda qaraxyadii shalay ka dhacay xarunta hay'adda UNB ayaa waxa sheegtay ururka al-shabaab oo ka soo horjeeda siyaasadda ay wax ku maamusho xilligan dawladda Soomaaliya Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho banaanbax lagu taageerayay dalka Turkiga gurmadka uu fidiyo dalka Soomaaliya xilliyeeda loo baahan yahay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim ayaa warkan ka soo diray Muqdisho dadkan dibadbaxayaasha ayaa isu soo baxooda waxa ay ku taageerayeen
howlaha gurmadka mashaariicaha deeqaha waxbarashada dhismooyinka dib u dhiska dalka caawimaada dadka barakacayaasha Soomaaliyeed ee dowladda dalka Turkiga ka wado gudaha dalkani Soomaaliya banaanbaxayaasha ayaa gacnaha ku watay calamada Soomaaliya ee dalka Turkiga waxayna socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee caasimadda dalka dadka shacabka ah ee isaga soo kala baxay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku qeylinayay eraya ahaa ha noolaato dowladda dalka Turkiga ha sii wado caawimaada dadka Soomaaliyeed waan idin garab taaganahay waan ka xunnahay dhibaatooyinka yaryar ee ka jira dalka Turkiga dibadbaxayaasha ayaa fariin u diray dadka dalka Turkiga ku nool waxayna ugu baaqeen inaana marnaba iska duminin dowladda dalka Turkiga u dhisan dibadbaxayaasha ayaa ugu dambeyn isugu soo aruuray taalada daljirka Dahsoon degmada Boodheere ee magaalada Muqdisho iyaguna dareenkooda dibadbaxayaasha halka ku soo bandhigay waxaan rabnaa in halka ka cadeyno ra'iisul wasaaraha Turkiga aan gaarsiino in Allah xanuunsanayno una duceynayno oo aan maalin daa'ima ducowna taaganahay ilaahay inuu mataqaanaa dadkiisa iyo dalkiisa isku hagaajiyo inuu ilaahay nimcada ay haystaan oo tuso waxaan leenahay annaga ra'iisul wasaare halkan waa ku joognaa waa ku taageersanahay waana ognaa waxaan noo gashay aad iyo aad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca salaadiinta Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay maaragtay dadka Turkiga waxa wada hadal qabtaan ama kala aad ku xuntiin wada hadal ku dhameystiranihiina anagana waxaan leenahay Turkiga aad u soo dhaweynayna Turkiga waa ninkii ama waa dadkii oo maaragtay soo gurmaday caruurtayna ama haweenkayna dhulka jiifay oo noo soo gurmaday waaye sida ay uga yihiin dhibaatooyinka ka soo maanta dalka Turkiga haddii aan nahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waxaan aad uga xunnahay maalmahan wixii ka socda Turki waxaan ugu baaqaynaa shacabka Turki inay garbays qabsadaan dadka yar oo minority ah oo doonaya waddanka inay dhaqangeliyaan maalin aad iyo aad u weyn oo aan shucuurtayada ku muujinayno taageerada walaalaheen Turkishka qaasatan Prime Minister-kayaga qaaliga ee maalintii ay nuugu xumayd ee ay xaraareyd noo muujiyey jabiyeyna bridge-kii ama buundadii ummadda annaga iyo caalamkana kala hayay ee lagu yiraahdo waxa afka qalaad lagu yiraahdo friend you need is friend indeed waa banaanbixii ugu horeeyay ee lagu taageerayo waxqabadka dowladda Turkiga u fidiso dadka Soomaaliyeed Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho maamulka iyo shacabka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wariyaha Ismaaciil Cabdullaahi Sabriya ayaa warbixintan inooga soo diray gobolka Shabeellada Dhexe maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jowhar ayaa maanta waxay si wada jir u cambaareeyeen qaraxii shalayta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta UNDP waxayna qaraxaasi ku tilmaameen mid wuxuushnimo ah waxayna ka codsadeen dowladda Soomaaliya inay adkeyso ammaanka caasimadda Soomaaliya iyo waliba goobaha ay degan yihiin hay'adaha samafalka iyo xarumaha dowladda afayeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowladda Soomaaliya Xaaji Ciro ayaa qaraxaasi waxa uu ku tilmaamay mid fulanimo ah maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan aad iyo aad u cambaareynaa oo aan uga xunnahay qaraxyadii shalay ka dhacay xarunta UNDP-da mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ayaa waalidiinta ku dhaqan deegaanadooda kaga digay inay caruurtooda tahriibaan xilli dhalinyaro badan oo Soomaalida ay ku dhibaataysan yihiin daafaha caalamka Cumar Maxamed Somali ayaa garowe ka soo diray iyadoo inta badan ay jiraan warar ifafaale kala duwan oo muujinaya dhibaatooyinka qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysta dalalka caalamka iyo kuwa xilligan ku safraya saxaraha dhibta badan ee u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya ayaa dowladda Puntland waxay waalidiinta kaga digtay in ay ka digtoonaadaan in caruurtoodu ay tahriib u diraan xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland qaar ka mid ah madaxda maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Nugaal ayaa ka qayb galay xaflad lagu soo bandhigay dufcadii ugu horeysay
ee ardayda fasalka afraad ka qalinjibisa iyagoona inta badan dhallinyarada kala hadlayay madaxda dowladda iyo maamulka iskuulkaasi feejignaanta ku aadan aadista tahriibta wadamada shisheeye sida uu tilmaamay maamulaha iskuulkaasi Cabdalla Salim Ahmed. waxyaabaha la dhalinyarada gadaal ula harayna inaysan dabagalin ama aysan raacin oo ay tahriibtu ka mid tahay in laga waantoomo ee waxbarashada waqtigeeda la siiyo guul baan u rajaynaynaa insha Allah haddii Rabbi idmo iyo waxbarashada ay sii wataan iyo siday naftooda iyo dadkooda waafici lahaayeen. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Jaamac Yaasiin Jaamac ayaa dhankiisa qaar ka mid ah waalidiinta ku dhaqan gudaha deegaanada Puntland kaga digay in ay caruurtoodu ay tahriibaan waxyaabo ay tahriibka kaga maarmaanna ay u sameeyaan. waalidiinta wax badan baad ka soo shaqayseen wax badan baad soo gacan qabateen ilmihiina waxa maanta jira waqtigii ilmaha maskaxdiisa lagu dagaalamayay weey haddii ilmahaagu uu ku guulaysto inuu waxbarashada jaamacadaha galo oo aqoon barto waxba ku taraya laakiin nin shaydaana jira oo tahriibaysta oo nin magafe la yiraahdo dhulka jooga la shaqeeya dadkana ku dhex jira ardaydana weerar ku haya yurub baa fiican halka la maraa hebel baa yurub ka soo shaqaystay hebel waxay lacag reerkooda u soo dirtay waxa ku shuba oo aad iyo aad u dhib badan ninkaasi waalidiinay waa in kula tartamaya ardayda inuu dhinaca ka xun u leeyahay. si kastaba ha ahaatee inta xafladan lagu soo bandhigayay tirada 29 arday ee ka qalin jibisay markii ugu horeysay fasalka afraad ee dugsiga sare Nugaal ayaa waxay ku soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa dhibaatada xilligan dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysata dalka Liibiya. Umar Maxamed Somane, telefishinka caalamiga Universal, Garowe. magaalada Dhagaxbuur ee dhulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ka socdeen mashaariic horumar ah ayaa xilligan waxa ay marayaan mashaariicdaasi kuwa gabagaba ah sida uu ku soo warramay wariyahayaga Axmed Kaabo. magaalada Dhagaxbuur oo xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u jirta masaafo gaaraysa qiyaastii 175 kilomitir ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka sameynaya horumarka waxaana ku socda qaab xawli ah xagga mashaariicda dhismaha wadooyinka dhagaxa la goglo cobblestone iyo mashaariicda kale ee xafiisyada maamulka magaalada waxaana barbar socda qorshaha hirgelinta master planka haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waraysi kooban waxaan la yeelanay maayarka magaalada Dhagaxbuur Mudane Cabdi Xasan waxaanu naga warbixiyay mashaariicda ka magaalada Dhagaxbuur haweeneen magaalada Dhexmartaan waxa ka socda mashaariic fara badan oo muhiim ah kuwa ugu muhiimsan hadaan soo qaadano waxa kamid ah dhismaha wadooyinka maartay cobblestone loo yaqaano fulitaanka maxaa la yiraahdaa master planka ama qorshaha magaalada waxa jira maxaa la yiraahdaa dayactirka wadooyinka mashaariic fara badan baa jira runtii oo maartay magaalada ka socota waxaana ugu muhiimsan maartay xooga aad u saarna waxa weeyaan dhismaha wadooyinka cobblestone way jiraan oo maartay mashaariic fara badan oo kala ka socota way jiraan waxa jira mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa maanta waxa ay sheegeen inuu heer gabagaba ah marayo ama ay soo gabagabeeyeen imtixaanaadkii shahaadiga ah waxaana ka warameen mas'uuliyiintaasi heerka uu u socdo imtixaankaasi oo bilowday horaantii toddobaadkii la soo dhaafay. wariyahayaga Cali Daahir Maxamed Boos ayaa eegay مسؤولينta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gunaanaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe kaasoo ka bilaabmay guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland horaantii toddobaadkii aan ka soo gudubnay waxaan saaka booqanay qaar ka mid ah dugsiyada lagu dilayay imtixaanka oo ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Ibraahim waa dugsiga ugu baaxadda weyn uguna ardayda badan dugsiyada hoostaga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kula kulanay agaasimaha waaxda kormeerka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Xasan Cabdullaahi Roble saraakiil ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer macallimiinta ilaalinaysa imtixaanaadka iyo maamulaha dugsigaasi oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Axmed Cawad sidoo kale waxaan la kulanay ardayda usaaka u soo gabagaboobay imtixaan waan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan imtixaanaadkaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa khamiista inuu noo dhamaaday muddo 6 casho socday 6 casho wax dhibaato ah maalaan arag ardaydu aad buu joogeedu deganaa macallimiinta ilaalinteedu way wanaagsaneen dugsiga aanu anagu ku galayno Sheekh Ibraahim wax rabasho muu lahayn maantana uu noo soo gabagaboobaya wax yar baa noo haray ma kameelito intii uu noo soo gabagaboobay laba qaybood bay galeen qaybtii sayniskuna tii hore gashay qaybtii artiskuna Soomaali bay galayaan marka ay ku jiraan
waxaan rajeynayaa guul baan rajeynayaa ardayda dhammaan fadhiisatay jamhuuriyadda Soomaaliland imtixaanka gaar ahaan goobtan aanu joogno isugu jirta Sheekh Ibraahim Secondary iyo Jamaal Cabdinaasir Secondary aad iyo aad buu imtixaankuna wanaagsanaa wax rabshada oo ka dhacay ma jiraan goobtan iyo goobaha kale intaan ka warhay maanta aynu ku jirno maalin khamiisa waxa inoo gabagaboobayaa aankii shahaadiga ahaa salada afraad ee dugsiga sare 2013 joogno oo goobta Sheekh Ibraahim gooboodba ay ku galeen dugsiga dhexe oo dhirkii ahaa ka sare fasaladii afraad hore inoogu dhamaaday fasaladii 8 si wanaagsan oo qiimagalana way inoogu dhamaadeen haddaan nahay dugsiga Cabdishaad waxa aan sanad noo dhamaaday sanad dugsiyeedkii koobaad ee aan ku soo xidhnay iskuulka waxaan maanta ku dhawaaqaynaa xidhitaankii iskuulka inuu xidhan yahay maanta iskuulku oo lagu soo noqon doono haddii Ilaahay idmo 25 August 5 cisho ka hor lana dhigi doono xalfadii iskuulka lagu qaban doono barxadda iskuulka haddii Ilaahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gunaanaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe kaasoo ka soconaya guud ahaanba gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaadkii u dambeeyay Ali Daahir Maxamed Boos Universal TV dugsiga Sheekh Ibraahim Bro hay'adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay inay sii kordhayso tirada qaxootiga caalamka sanadii 2012 ayaa tirada qaxootiga cusub ee caalamka waxa ay gaartay 1.1 milyan halka tirada dadka hoy la'aantaana ay gaartay 45.2 milyan Syria ayaana ugu badan sida la sheegay iminka sanadii 2012 isku celcelinta dadka ay qabsatay inay hoygooda ka baxaan ama lagu qasbay ayaa caalamku waxa ay markaasi gaaraysaa 23,000 oo qof daraasad cusub oo la sameeyay ama laga sameeyay dadka ay dagaaladu ku haystaan dalka Syria ayaa waxa lagu soo warramay inay gaarayaan 9 milyan halka dadka qaxootiga ah ee dunida ku noolna waxa ay markaasi la yimaadeen baa la sheegayaa 5,000 oo wadan ayaa la sheegay in markaas ay dadku iska dhiibaan dalalka ugu badan ee dadku ay iska dhiibaan ayaana waxa ay kala yihiin Afghanistan, Soomaaliya, Iraq, Syria, Suudaan iyo waliba wadamo kale waxaana hay'addu ay sheegtay in sanadii 2012 dadka magangalyo doonka ah ay gaarayeen markaasi 1.3 ayuu yiri amaba ay sheegaysaa warbixinta iyo waliba tiro intaas ka badan oo aan la xaqiijin warkii caalamka daawadayaal oo idin la socodsiinaya anigu Jamiil Xasan Garuuna xilliga inta ayuu iga dhan yahay waxa idin ku duwaya xubinta isboortiga iyo wariyahayaga Cusmaan Fantastic tani kulantadeena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo u mahadsantahay sidoo kale kulan wacan khiyaarta hawada naga daawanaysa qodobada isboortiga aan idinkugu hayana waxaa ka mid noqon doona kooxda Barcelona ee dalka Spain oo ka kaluumeysanaysa biyaha kooxda Liverpool daafaca Daniel Agah ay ka doonayaan laacibka gooldhalinta horyaalka dalka Talyaaniga soo qaaday Cavani ee kooxda Napoli oo xodxodasho ugu jira kooxda Real Madrid ee dalkaasi Spain iyo waliba Manchester City kadib xilkii ay ka qaadeen tababare Roberto Mancini haatan oo ay magacaabeen tababarihii kooxda Malaga 5 arin ayaa laga sugayaa inuu ka qabto kooxda Manchester City faaladaasna qaybta dambe xubinteeda sportiga ayaan ku eegeynaa ee u diyaar garooba wararka ka imaanaya kooxda Barcelona ee ka dhisan dalkaasi Spain ayaa lagu waramayaa in mar kale ay dib u soo cusboonaysiiyeen xiisaha ay u qabaan daafaca kooxda Liverpool ee lagu magacaabo Daniel Agah sida uu qorayo wargeyska El Mundo Deportivo ee ka soo baxa dalkaasi Spain ayaa qoraya in tababaraha kooxda Barcelona Villanova uu dhab ahaan uu ka fikirayo in laacibkaasi daafaca kubadda ka qaabaya inuu la soo heshiiyo shaqada ku aadan in laacibkaasi ay keenaan ayaa la tilmaamayaa inay ka dambayso maadaama ay u muuqato inay ku fashilmayaan daafaca kale ee kooxda Paris Saint-Germain ee u dhashay dalkaasi Brazil ee lagu magacaabo Thiago Silva kaasi oo kooxda Paris Saint-Germain ay doonayaan inay sii haystaan isla markaana ay sare u qaadayaan qiimaha suuqa kala wareegga ciyaartooyda uu ka joogo waxaa la tilmaamayaa in kooxda Paris Saint-Germain laacibkaasi qiimihiisa ay gaarsiiyeen 40 milyan oo euro waxaana laacibkani dhowaan uu gaashaanka u daruuray inuu ka hadlo mustaqbalkiisa kooxda inkastoo si weyn loola xiriirinayo kooxdaasi Barcelona wararka qaarna waxa ay sheegayaan in suuragal ay tahay in tababaraha kooxda Paris Saint-Germain Carlo Ancelotti inuu u sii raaco kooxda Real kaasoo laga yaabo in xagaagan uu qabto kooxda Real Madrid
ugu dambeyntii tababaraha cusub ee kooxda Manchester City ee dhawaantan lagala soo wareegay kooxda Malaga Pellegrini ayaa la tilmaamay in 5 arin ay hor yaalaan oo ku aadan kooxdaasi Manchester City. haddaba faalo umuurtaasi ku saabsan waxaa qalinka u qaadatay oo eegaysa Xamdi Maxamed Kadiye. naadiga Man City ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday in Manuel Pellegrini ay u magacaabeen bedelka Roberto Mancini ee tababarka kooxda Man City isagoo 3 sano la joogaya hantiilayaasha. jadwalka shaqo ee tababarahan reer Chile aad ayuu mashquul u ahaanayaa toddobaadyada soo socda waxaana horyaal in uu xaliyo dhowr arrimood oo yaal garoonka Al Ittihad si loogu diyaar garoobo xilli ciyaareedka dambe waxaana ugu muhiimsan in uu go'aamiyo mustaqbalka qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda in uu heshiiska u cusboonaysiyo Carlos Tevez, Gareth Bale iyo Lescott iyadoo heshiiskooda haatan uu ka harsan yahay min 1 sano. waxaana muhiim ah inuu ka hortago in xilli ciyaareedka dambe qaab xor ah ay u tagaan kooxda waana qasaaro xoogan oo kooxda ku habsanaysa marka loo eego qiimaha laacibiintaasi ay ku leeyihiin suuqa kala wareega ciyaartoyda. in uu xiriir wanaagsan la sameeyo ciyaartoyda tani waa calaamadaha lagu yaqaan Manuel Pellegrini awoodna waa uu u leeyahay in uu isku xirnaansho ciyaartoyda ah sameeyo waana midda uu lahaa Roberto Mancini. Mancini isku dhac joogto ah ayuu la gali jiray ciyaartoyda waxaana ugu cadcad Carlos Tevez iyo Balotelli waana midda aysan doonayn maamulka kooxda. waxa uuna madaxa kooxda Man City Qalduun Mubaarak dhawaan yiri bedelka Roberto Mancini waa inuu ahaada shakhsi awood u leh inuu hab wanaagsan u maamulo qolka dhar bedelashada. sidaa daraadeed Manuel Pellegrini arrinta laga rabo waxa ay tahay in xiriir wanaagsan uu la yeesho ciyaartoyda si siman, in uu daneeyo horumarinta ciyaartoyda dhalinyarada ah, in uu fursado siiyo horumarinta akadeemiyada kooxda waana midda uu ku fashilmay Roberto Mancini. yaraynta qarashaadka kooxda kaga baxaya ciyaartoyda banaanka laga keenayo waa dhibka haysta Man City. haddii dhankaasi uu xooga saarana waxa ay dan u tahay kooxda oo kalsooni ayuu ku kasban doonaa. kabashada kalsoonida taageerayaasha kooxda inkastoo Mancini laga tuuray jagada tababarka kooxda haddana wali waxaa ka samrila qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda. sidaa daraadeed Manuel Pellegrini waxa laga sugayaa in taageeradaas uu ka soo weeciyo Mancini waxa uu arrinkaas ku kasban karaa in bilowga kooxda uu kala soo muuqdo ifafaalo wanaagsan, in uu dhaafiyo City wareega guruubyada Champions League. labadii xilli ciyaareed ee abid ay ciyaareen Champions League Manchester City waa ay ku guuldareysatay in ay dhaafaan wareega guruubyada waana shaqada ugu culus ee hortaala Pellegrini oo wareega 8 geeyay xilli ciyaareedkii hore ee kooxda Malaga. waa hagaag Xamdi aad ayaad u mahadsan tahay sportigana aad ayaad ugu fiican tahay akhyaartana daawanaysay xubintii sportigana waa naga inta dhanka kaamiradan waxa waa Maxamed Yariisow anigoo fantastic ayaa soo jeedinayay fi amaanillah.